airport certifier oo de aan dalka markii koobaad laba oo mid aan ahayn xitaa laba inta wax ka dhinaa badii ay ku daminayeen dabka hada jeer biyuhu waa oxygen yahay darajadiisa ogtiin ka biyaha dabka markuu dabku xad gaaro way sii kordhiyaan marka maadaama diyaaraduhu ay olol badan yihiin shidaal badan ay qaataan biyuhu ma baqtiinayaan inay ku sii kordhiyaan dabka mooyaane laakiin waa in la helaa xumbadii qaboojinaysay marka aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa waa xaddiga ugu yara airport la keeno 4,000 oo litir waxaan u baahnay ilaa 15,000 oo litir laakiin waa markii koobaad waa AFFF 3% xumbada la yidhaahdo weeyaan European standard CAO certified marka insha Allah taala bilaha soo socda ama sanadka intaan dhamaan waxaan isku daynaa ilaa 10,000 oo litir inaan gaarsiino sanadka ku xigana 5,000 oo litir aan ku darno marka 15,000 oo litir oo safety iyo biyahoodii iyo shaqaalahoodii ayaa halka ku diyaara aad iyo aad baa runtii shirkadda Freidu ay ugu mahadcelinaynaa fire truck horena way keeneen wasaaradda iyagu waa iska kaashadeen fire truck horena wasaaradda maaliyadda ayaa lagu maalgelisay aad baan runtii iyagana ugu mahadcelinaa wasaaradda maaliyadda Freidu ina ka labaad baan iska kaashanay marka labada fire liftooda iyaguna high standardka oo mid kaliya dawaab subaxii buu ayuu samaan karaa waa in mid baa ka baxla marka waxa soo dhan waxay ahaayeen horkaca uu sameeyay airportka Kigali International Airport oo maanta regional ka caan ka wanaagsan madaarada dalalka la aqoonsan yahay gaali cadaan iyo madowga la qaray madaarkan horumarkii aan waqtiga muddada umada siinay jirtay oo ku talaabsaday taasoo soo jiidaysa mar walba diyaarada caalamiga oo Freidu imka 2 sano ku dhaweeyay la joogtay qaar kale jiro in soo socdo oo iyaguna doonayeen yimaadaan oo Turkish Airways ka mid tahay iyo Qatar Airways standardka madaarka ayaana u sabab soo jiiday shirkadaha imanaya aad iyo aad baan mar labaad mar saddexaad shirkadda ugu mahadnaqnaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi